xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu markii ugu horeysay uu warbaahinta u soo bandhigay kaarkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu ku lahaa siyaasi Cabdirashiid Riyaraac oo dhawaan madaxweyne Biixi u soo xulay in uu ka mid noqdo 7 xubnood ee komishinka doorashooyinka Soomaaliland. xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga wadani Nuuraddiin Diini ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay haddii uu abaalgud u sameynayo Cabdirashiid Riyaraac in uu ku daro golihiisa wasiirada, balse waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in madaxweyne Biixi xubin ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu u soo xulo komishinka doorashooyinka Soomaaliland. وبوجي يجوا أساس هارين والليس كودي جولها دحى الحسب جوده وحال كان كتير جودي هسا أو صدق بقولي تدبي اللي إحنا نمبر كيسو يهاي إتشنير عبدالرشيد محمود أو محمود علي ريرaac أو كم ده جولها دحى الحسب جو كلمية سيدا سمر كتاعي وإحنا السويديننا مدحونا موسى موحو إناس هم جعاوي مراقب كلمية مسوحو إناس هم جعاوي كوميشن قرن أو قرصورة oo ka garnaqa 4 milyan reer Soomaaliland codkooda oo musharaxiinta tartamaysa yiraahda adigu madaxweyne ma tihid adiguna madaxweynaad adigu xildhibaan baarlamaan ma tihid adiguna xildhibaan baarlamaan baad adigu ma tihid goolad deegaan adiguna waxa tahay goolad deegaan madaxweynuhu komishan garsoorka noocaas gaadho inoo soo dooray mise wuxuu inoo soo dooray muraaqibiinta xisbiga kulmiye waa su'aal aad iyo aad u baahan shacabka reer Soomaaliland inay fahmaan isna weydiiyaan Cabdirashiid Riyaraac si bareera oo publiga ayuu uga qayb qaatay campaignkii Muuse lagu soo doortay tanina waxaan u maleynayaa inay tahay abaalmarin isaga lagu abaalmarinayo mudane madaxweyne haddii aad Cabdirashiid doonayso inaad u abaal celiso qalinkaaga iyo xilalka adigu aad hayso ugu abaal celi oo golaha wasiirada ku darso awalba uu kamid ahaa waxa kale oo iyaduna jirta oo had cad isla soo taagay been cad afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland waxaana moodaa madaxtooyadeeni inay imika ka shaqeyso yoontan oo gambar gaaban oo murana ku fadhido halkii ay qaranka uga shaqeyn leh Soomaalidu waxay tiraahdaa ilaa been raad ma leh waxa warbaahinta hor yimid Foosi Faarax oo ahaa xubintii soo magacaabeen golaha guurtidu oo ahaa xubin ay golaha guurtidu wuxuu sheegay komishaneer حسب مدحوينهنا وعليه isagoo u sifeynayay inuu yahay xisbiga wadani xubintaasi iyadoo aan ahayn xisbiga wadani waxay ku tilmaameen inay tahay wax aan jirin si madaxtooyadu way ku beenowday Foosi inta soo fadhiistay buu madaxweynaha ay soo celiyay in madaxtooyadii qaranka ummaddu ay been u sheegtaa waa mid subxaanaleh ruqan nin lidabada haya ma kacdo maanta Soomaaliland dhinac ka soo eegto minbari ilaa galbeed waxa ka taagan qaylo aad u weyn taasoo sababteeda ay keentay maamul xumo haddii aynu doonayno in hay'adaha qaranku inoo dhismaan dawladnimaduna si sax ah inoogu shaqeyso waa inaynu xulanaa dad ka madax bannaan siyaasiyiin wasiiro iyo xisbiyo waa marka aynu dhisayno komishinkii qaranka haddii aanu nahay xisbiga wadani maanta waxaanu soo bandhignay oo hortiina aanu keennay inuu Cabdirashiid Riyaraac ka mid yahay liiskii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye taas la doonaya ummadda in dal loogu jixo oo laga iibiyo annaguna ma aqbalayno golaha baarlamaankana halkan fariin baan uga direynaa oo waxaanu leenahay Cabdirashiid oo xisbigii kulmiye ah oo golihii dhexe ee kulmiye ah inaad maanta leedin horkeena wiyakana waa jira taagan oo idin hor yaala sida baarlamaanka Puntland ay maanta u shaqeeyeen bay u shaqeyn ama waxay noqon doontaa iman 15 sano kuraasida fadhiyay haddii aad maanta ka umada ku sidaysa waayo wuxuu Muuse hor keenay waa xisbigiisii waxaan jecelahay inuu ka dhigto Cabdirashiid muraaqib xisbiga kulmiye wareega aad iyo aad baan u salaamay saxaafadda Soomaaliland qof kasta reer Soomaaliland waxaan leenahay waa kan liiskii golaha dhexe xisbiga kulmiye Cabdirashiidna waa kulmiye waa quraanjay ku quusatay maanta ma maxay oran ma been baanu sheegnay way oran waxa iyagu soo saareen baan halkaan keenay aad baa mahadsantiin سنة يدارات بسقاط ضد الخلاف التنموي وارهم خلاف حبة يعني الحسبي حكي مدحونهم مركي حلقة دائما وحكم بالبرلمان
arrintiinii waxa weeye wax sharcigaada dilaahiytii toddobada xubnood ogolaatee maantana madaxweynuhu arrinta riyaraa wuxuu gudbiyey baarlamaanka arrintii sharciga tii hore u raacay bangaara haddii uu sidaa madaxweynuhu ku adkaysto idinkuna sida ku adkaystaa dhika xisbiga mucaarad ahaan inta labada qaadisa وسؤال في عنه ورتوال التاريخ هاني هسترها وحن جعلها إلى أن يرد نفتيميو إلا ما أنت لا أساسي إلا ما تكونش كدور وشوين كقرنك مرون كاسوبة كتحين ما هو حيمك عصب ودين لك وسدي هرب عدبا وقيلني سي هرب كلية وقيلني ويلو بيكون مش كل بدي يكون يسقالكي دور شذا أتك وكوجو يستحس بقول قاب كل بصور سي سدا سمر كتاعي أصليا مبوحة هرتقين halkay wax ka xun yahay wax weey waxeerka komishanku ku asaasay hay'adda dhan ee doorashooyinka qaranka ugu muhiimsani ma laha xeer u gaara oo si tigbay tiga u cadeynaya shaqadooda waajibaadkooda mas'uuliyadahooda iyo sida ku imanayaan gabigooduba waxay ku dhex jiraan xeerkan la ilaa xeerka doorashooyinka madaxtooyada guriyaasha deegaanka haddaad eegtana waxay ka bilaabmaan waxa ku leeyihiin wax aan ahayn bashan qodob kuwaas oo soo kala baxay ABC halka horta waxa taalaha garasho fara badan madaxweyne kastoo yimaadaana xeerka wuxuu ka dhaxarkaya dantiisa sida daraadeed inuu wax ka bedelo hagaajiyo oo taariikh ka tago oo legacy ka tago oo qaranka wuxuu reebo diyaar uma aha ee uu ku danaysanaya ku danaysiguna waa jabka qaranka haddaan ku soo dhawaado maxaad yeelaysaa xisbigu hore uu u sheegay go'aamadiisa gudoomiyaha hadlay afhayeenka xisbiga hadlay xogeeyay guud xisbiga hadlay go'aanka xisbigu waxa weeye marnaba suuragal noo noqon mayso doorashada ku gelimayno qof xisbiga kulmiye kamid inuu commissioner noqdo simple waxaan anagu doonaynaa wax lafta laga saaray oo la soo shaandheeyay oo dadka u cuntama oo xildhibaanada baarlamaanka iyo golaha deegaanka ee soo doona ku qancaan oo aan ahayn xisbi ee ah shakhsiyaad commissioner oo garsoor taasaan ku qancayna xisbiguna waxa joogo hogaankiisii gudidiisii fulinta waa hay'ad weyn oo dhameystiran iyada go'aamo waaweyn soo saari doonta oo itrimkaanu sheegno ka ballaaran waa barda la magacaabayba halka inaad ku noqoto maaha oo reer waa la magacaabay wixii la gudboonaan waanu sheegnay maaha wax soo socdo imanaya Cabdirashiid oo reer madaxweynuhu magacaabay waa nagan imka ka hadlayn wixii la gudboonaan waa nagan idin sheegnay waan Cabdiraxiin Mooli Ismaaciil shabakada wararka Ilays News magaalada Hargeysa